iyadoo ay goobaha kala duwan ee ay ku kulmaan bulshada la isla dhex marayay maalmihii u dambeysay amase lagu hadal hayay in maalmihii u dambeysay warar nuxurkiisu uu ahaa koox jabhad ahi ay ka aasaasantay deegaanada bariga gobolka Awdal waxaana maanta ay xukuumadda Soomaaliland ay xabsiga u taxaabtay 3 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Boorama xildhibaanadan oo kala ah Maxamed Maxamed Faarax Dheerayste oo horay magaalada Boorama uga soo noqday maayir ku xigeen xildhibaan Mustafa Xayta iyo sidoo kale xildhibaan Indhasheed kuwaasi oo ay wararka qaar sheegayaan in la xidhiidhinayo jabhadda ka dilaacday ee laga soo sheegayo bariga gobolka Awdal hase ahaatee mas'uuliyiintani la xidhiidhay ayaa waxay ahaayeen kuwo horay ay ugu daba jireen laamaha ammaanka ee gobolka Awdal balse hadda ugu dambeyn ay noqdeen kuwo xabsiga loo taxaabo waxaana xusid mudan in ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee lagu magacaabo RRU shalay ilaa iyo xalay ay magaalada Boorama ay gaafureegayeen taasina ay shaki weyn ay ku abuurtay dadka rayidka ah ee ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal isku soo wada duubo saddexdan xildhibaan ee ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Boorama ayaa hadda ah kuwa iyagu ku jira saldhigga dhexe ee magaalada Boorama Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed Buri wararka telefishinka Sahan magaalada Boorama